madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa maanta kormeer ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo kaas oo 2 maalin ka hor ay ka baxday hay'adii gacanta ku haysay qaybo badan oo kamid ah isbitaalka isla markaana ay istaageen adeegyadii caafimaadka ee bulshadu ay ka heli jirtay isbitaalka. madaxweynaha ayaa kormeeray qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka waxa uuna xaaladooda caafimaad u wareystay qaar kamid ah bukaanada jiifa isbitaalka. kormeerka kadib ayaa waxa madaxweynaha warbixin ka siiyay xaaladda ay wajahayaan dadka adeegyada caafimaad ka heli jiray isbitaalka. agaasimaha guud ee isbitaalka Maxamed Cabdi iyo isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Mudug Cabdi Goodile qaybihii ay ka baxday ARC hadda waqtida emergency iyo OPD iyo maternity hadda si volunteer ah ayaa wax u soo shaqeynaya shaqaalihii hore u soo shaqeynayaan dawooyinka aan haysanana aad u yar yihiin hadii dadku shaqaaluhu dawahaya loo taalo fiican waxaan rajo ka qabnay inaan hawsha sii wadno inta karankeena ah. hadda xilligan la taagan yahay ma jiraan wax hay'ada ee yiri waxaan gacanta ku qabanaynaa meelihii hay'adaas ka baxeen. labada hay'adood waxay midii hore waxay gacanta ku haysay meel muhiim ah waa hooyadii dhalaanka waa bukaan socodka waa emergency-ga meesha qofka dhigbaxaya la keeno. talabaad ee hadda maanta sheegtay inay April ku eg tahay waxay gacanta ku haysay 6 qaybood oo ay ugu badan yihiin qaybaha caruurta. xilligaanna ma jirto wasaarad ahaan cid tiri waan laakiinse waxa noo maqan barbowsalo iyo orod iyo dadaal. duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Bare ayaa xusay in isbitaalkan oo dabooli jiray baahiyada caafimaad ee gobolada dhexe iyo qaybo badan oo kamid ah dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo xilligan wajahayo xaalad adag. magaaladan Gaalkacyo isbitaalkan inuu xirmahayo markii la dareemay qayladhan baa yeertay mujtamaciidan wax ka casan yahay. isbitaalkan dad badan oo danyar ah baa ku noolaa dhowr kun oo qoys oo barakacyaal ah oo degan yihiin miyiga sidoo kale dad danyar ka imaan jiray ilaa 300-200 kilomitir square ah buu sabalay garan jiray. maantana labadii hay'adood gacanta ku haysay warqadoodii waa kuwa waxay soo qoreen inay midna ka baxday mid kalena ay ka baxayso bishaan. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay inuu ka xun yahay dhibaatada soo food saartay isbitaalka wuxuuna baaq u diray hay'adaha ka shaqeeya caafimaadka gaar ahaan hay'adda MSF iyo shacabka reer Galmudug inay u istaagaan sidii uu isbitaalku uusan u xirmi lahayn. aad iyo aad baan maaragtay runtii uga tiiraanyoonayna isbitaalkan oo maantay arrimahaas maaragtay uu ku noolaa ay maanta ka tagayaan ama ay ku baaqeen inay ka tagayaan. aad iyo aad baan uga xunahay anigu isbitaalkan taariikh buu ii leeyahay waa aqaan markii la dhisana waa ogaa. waxaan malaynayaa maanta muddo 21 sano ayaa isbitaalka oo yar iyo isagoo weynba Gaalkacyo uu ku yaalay. waxaan isleeyahay waa isbitaalka ugu daaweyn Galmudug oo dhan marka si loo fiiriyo. maanta in maaragtay uu khatar ama dhibaato galana wax loo dulqaadan karo ma aha. inay meeshii abandon gareeyaan waa arrin fool xun mana habboona. midda labaad waxaan codsi gaar ah u jeedinaynaa hay'adaha internationalka ama caafimaadka aan ka codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan hay'adda MSF oo awal hore u joogi jiray isbitaalkan oo qoladii bilowday ahayd ayaga laftooda waxaan ugu baaqaynaa maanta isbitaalka waa cidla meesha aad uga tagteen weeye. waxaan ka codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan haddii aad noo qaban kartaan noo qabataan isbitaalkiina gacan ku hayntiisa soo codsataan sida ugu dhaqsaha badan waanu idinku wareejinaynaa maanta. aad iyo aad baad mahadsantihiin dadweynaha iyo shacabka reer Galmudug. mar labaad mar saddexaad waxaan ugu celinayaa isbitaalka loo soo dadaalo kii dawahaya kii $20 hayow xisaabta la furi doono ku soo shub. Saadaq Siciid Nuur Galmudug TV Gaalkacyo.